اوكي السلام عليكم قراabo kusoo dhawaada videogan cusub magacayga Muna Xaraare maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo bullet entry gan oo ah wax kale ma ahan oo sideeda bullet waa labadan xariiqa oo lagu soo galo entry-ga ani bullet waxaan isticmaalaa mark structure-ka soo waxaan tusaa sidaan aniga entry ahaan oo igu xoojiyay oo iga save gareeyay fake breakout oo dhan iyo habka aan isticmaalo oo runtii easy ah oo shuruudaha hadda ku dhaqantid maaragtay waxaan ka helaysid saasan rajeynaa insha Allah taala marka waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iideysato in badan videoganeeto okay soo jeedin videoganeeto waxaan waa soo sawiray hasdaay candle by candle inaynayo marka bulletka ku galaysid badana waxa aad ka loo xiiseenayo lacagtan for example aan hasaan igu sawiran tahay waxa ii muuqato probability fiican oo sell ah waxba mark structure waxay tahay waxbaan soo sawirtay waxaan raadinayaa waa entry okay waxa ugu horeeya aan sameynayno waxa weeyaan bullet marka isticmaalaysay meesha ugu koreysa oo uu suuqa gaaray okay let's say kan we will be yahay okay meesha ugu koreysa uu suuqa gaaray mid dhigana meesha ugu hooseyso ama high aan dhahno lowgi ugu dambeeyay suuqa waa dhigana ama maybe no kan ahaado no adiga waxay ku xiran tahay meesha u dhiganaysid marka ani badanaa waxaan jeclahay the tighter the best okay because ani waa ogahay suuqaas inuu soo aadaa because of habkan u sawirtay market structure ahaan so waxaan raadinayaa ma ah inaan ogaado lacagtaas inay reversal tahay waxaan rab inaan ogaado waxa waa inaan ka faa'iideysto oo sell ku soo raaco sameyn okay so marka ani waxaan dhigtaa directly xariiqinta meesha aan rabo inaan ka soo galo hadii oo gorilla tahay mar qarkood wuxuu dhiganaa meesha isleeyahay reversal waay boy mid kale meelahan dhigtaa oo entry ahaan ka wada waxa sidoo laakiin ani taas ma sameeyo backtesting xasan ku soo sameeyay idinkana backtesting badan hadii diri doona insha Allah sabab hashan ula qabsataa so okay ani meesha ugu dambeeyso oo lowgi ugu dambeeyay ayaan u dhiganayaa marka lacagtan ani marka maxaan ka sugayaa waay lacagtaneeto shuruudda ugu horeysa waxa waaye in la soo jabsado lowganeeto okay so waxaan sugo waxa waaye candle we can sound ignore that waxaan sugayaa waxa waaye candle soo jabsado oo banaan ku soo baxo okay marka qaarkood marka maxay sameynayaan lacagaha waxay sameynayaan for example in this case maxay ka ilaalinayaan marka maxaa la dhahay bullet waxay ka ilaalinayaan lacag marka qaarkood intay soo jabsato ayuu body-gu gudaha ku noqonayaa haddii taas dhacdo adiga taas jabsasho ma aha jabsasho waxaa laga wadaa markuu candle-ka banaanka u soo baxo oo body-ga banaanka yaalo wiiga maya body-ga uu banaanka yaalo taas the first thing markii la jabsado kan la soo jabsaday ma soo galayno anaga waxaan sameyn jirnay waxay markii lacagta la soo jabsado soo gali jirnay markaas weeknu gudaha inta ugu noqoto week la baxdo aan meesha city stop loss iyo ama guduud badan oo ugu hayn jiray so that's waxay ka save gareynayso so markii lacagta soo jabsato hadii gudaha ku noqoto adiga you are not involved who cares lacagta waxa laga yaabaa inay gudaha sii aado oo candle kala sii baxdo oo meelaha sii aado soo noqoto hadana mar kale oo meesha role aado so you don't want to maxaa la get involved in lacag maxaa la body-geeda banaanka imaado laakiin markii body-ga banaanka imaado marka maxaa dhacaya markii body-ga banaanka imaado waxa dhacaya wax ah aniga waxaan sugayaa saan u galo lacagtaas okay let's see okay. It doesn't matter قرن ماشي بهالكوا أكبر تحتكم waxaan sugayo waxa waaye candle ka ku xigo in uu ku bilaabo buy so let's take this one here just to make it easy kan weekend ka wada candle ka ku xigo waxaan ka sugayaa markuu bilaabanayo inuu ku bilaabo buy oo uu ku soo sameeyo retest waliba kan si fiican uga soo jebi
just to be nadiif oo uu kusoo sameeyey retest zonka aniyaan ka gelina badana ani meesha xariiqinta ii taalo 2-3 pips aan kasoo hoos maraa 2-3 pips kayga ma ah 2-3 thicks ka oo gorilla 2-3 pips caadi ah macnaheeda waxaa 10-20 thicks ama 30 thicks anyway so meesha camalaan dhiganayaa marka maxaan sugayaa hadda kuma jiro lacagta soo waxaan rabo waxa waaye lacagtan intay meesha retest kusoo sameyso oo ay involved iga dhigto sida hadda sameysa camal ama maybe gudaha wax yar u gasho ay soo gurato markay soo gurato aan markaaseeto sii raaco lacagta okay oo sii raaco oo lacagta markay isu bedesho maxaa la dhahay guduud okay ilaa meeshaas baayiga tagay baayiga maybe korkiisu meeshaas u tagay ilaa meelahaas u tagay sameeyeen so way soo guratay lacagta guduuda isu bedeshay kan dalkaasayta inaan soo raacay ay tahay so problem waxa laga yaabaa waxay koos martid meeshaas ka qaatid anyway marka ani waxa ugu jeclaa waxa in wax yar intuu kor u galo selesta aan u dhigto ama aan isha ku hayo abeena bilaa inuu soo gurgurto aan soo qaato kan dalka haddii week la baxayso lacagta dhinaca kore waxay ii sheegaysaa lacagta seeto in buyerska aysan xoog lahayn just maxaa la dhahaa isku dayayaan laakiin sellerska suuqa la wareegayaan so that's a sign of entry fiican so markay saan lacagta u sameyso oo ay ku geliso adiga you are already involved so you don't have to worry maxaa la dhahaa waa gasho waay marka marka qarkood maxay kugu sameynayaan lacagta waxay kugu sameynayaan kan dalkii isdhahaysay inuu gurto ma guranayo guduhu u sii galayaa kuwa kale maxaa dhahay guduuda ayaa baxayo ka bacdi kugu soo noqon so adiga marka waxa waaye first of all kan hadduu week la baxo you are not involved kan hadduu gudaha ku jiro iyo intuu gudaha ku jiro you are not involved waxaan ka wadaa ma ku jirtid lacagtii waxaad sugaysaa lacagtaneeta inay soo gurato oo markay soo gurato ay timaado entrygii aad ka gelaysay aad ka gashay markaas sida sii qaadato mar qaarkoodna maxay sameynayaan lacagta waxay sameynayaan intay buy aado meel zonkii train line-ki intay kusoo taabato rail line-ki in this case ay soo noqonaysaa isla markiina soo gato marka lacagta entry ka sugaysid that 10 minutes camal oo saacada bilaabato badanaa saacad cusub inay bilaabato waa that 10-15 minutes oo waxay ahaataa waa inaad haddii aad rabtid inaad manual ku gashid kor taagan tahay si aanan maaragtay entry been ah lagu gelinin so you have to be clear in lacagta soo noqonayso oo markay soo noqoto aad soo raacdid kadibna maxaa la dhahaa sidaa u soo gashaba lacagtiisa oo ku dhex jirtaa hopefully markaas soo dhex gashin lacagta markaas ku dhaqaaqdo waxay ku fiican tahay waxa waaye first of all markii maxaa la san amal involve laga dhigo horaa waxa kaga bilaabaysaa lacag oo maxaa la dhahaa profit ku wado so guduudka badan oo lagu haayo ayaraana mar qarkood yes lacagta waxa laga yaabaa inay meeshan ku entry ku noqoto guduud aragtid maxaa la dhahaa why not it happens like sidaas kugu dhaqaaqo sidaas sida maarta ku qaramsatid oo maybe la take profit kale ugu dhaco alxamdulillah waxa la kugu dar okay so entry lagu sheegay bulletka waa kaas marka hadda waxaan sameynaynaa xogaha backtestina si ma aragtay aan idin tuso waxaan fiirinaynaa lacagtaanito waxa ay maxaa la dhahaa habka aan u soo yareynaynaa badanaa markaan backtestin sameynayo haddana saan u yareeyaa meel dhaxan ka jiraa saan u ogeyn haddii meeshii haddii kale daa ogtahay meesha u socoto adaa isqiyaamaya moogtaa so laakiin in this case waxyaalaan xoogaa kor usoo qaadayaa because waxaan rabaa inaan ogaado lacagta haddii ay meel reversal ku jirto waxaan rabaa inaan ogaado laakiin ma rabo inaan arko kandalada si idin tuso haddii kale waa easy okay waan jiray maanta so waxaan leeyahay lacagta inay kuu sawirantaa 1 2 3 iyo 1 2 3 iyo waxba ku 1 2 3 dadka market structure ku shaqeysta ila fahmaayo I don't know sans sar hadarta inta mara so waxay sameeyay expanding so
systematic. Okay. So lacagta handaan rabo inaan galo markaan waxaan sameynayaa the same thing oo ah waxaan dhiganayaa candle-ka ugu dambeeyo buy-ga ah. In this case maxaan dhahay inside bar ku jiro. So inside bar-ka maybe inaan video yaro tips and tips camal kusoo micnay wuxuu yahay hada videogan inside bar micnihiisu kuma si maxaa dheeraan karo. So kan waa inside bar, kanna waa inside bar. So asliyan hadda kan ka bixiyo waxa leeyahay inay yihiin cagaar mararka qaarkood waa guduud, laakiin macnaheedu maxaa waaye inside bar waxa lagu sheegay dhan waxa waaye candle-kan korna uma jibinin hoosna uma jibinin. So markaan aan maxaa loo isticmaalaa entry ahaan marka cusku siinaysa lacag kan waxay ahaan kartaa meel cuskuyn kartid, kan waxay ahaan kartaa meel cuskuyn kartid, kana meel cuskuyn kartid waxaas ama intaas le waa the whole concept meesha adiga hadhow ka soo galaysin. Okay, let's say kan tight kan aan fiirinayna. So lacagtaaneta maxaa aan sugayaa marka waxaan sugayaa candle-ka koowaad inuu soo jabsado. haddii lacagtaas intay noqoto week la bixiso body maxaa la jabsasho ma aha kaas. jabsashadan ka hadleen waa inuu body-ga banaanka ku soo xirmo kabacdi saacada ku xigtaan sii qaadanayna. So let's see kan wala soo jabsada maxay sameysay week la baxda dhinaca kale ka dhacday. So taasoo aad ma rabtid inaa waxa si farax la gashin tan body-ga soo jabsada oo jeeda. So that's nice. So hadda marka maxaan sugayaa maadaama body-ga banaanka yimid ani waxaan raadinayaa wax kale ma aha. haddaan rabo inaan lacagtaaneta galo waxaan waligeena inta so just to say marka maxaan raadinayaa waxa weeyaan candle-ka cusub oo bilaabanaya inuu buy aado oo ilaa korkaas tago umezonkaas aan rabin inaan kasoo galo uu retest kusoo sameeyo. markaan arko inuu guranayo oo week la baxayo inaan sii raacaan iga rabaa. Okay, haddii uu candle-ka soo socdo uu gudaha galana I'm not involved. ma raban candle gudahaas ku jira inaan ka dhex shaqaysto because haddii kale gudaha maanta nigu dhahay inaan stop loss iga dhacaya waxaas dhan aan rabo inaan u gooyo. So in fact wuxuu ka save gareynaa fake breakout. waxa laga lacagta inaad soo jabsato dalaq dhileed way kugu noqotay. wuxuu ka kala save gareynaa markay soo jabsato kan ku xiga haduu gudaha galaayo another type of fake breakout. labadaas buu ka save gareynaa. So aad waxaad lacagta apeena soo gasho hore inay blue kaaga bilaawdo oo maaragta iyadu ku dhisto tranquil ahaan ugu shaqaysatay. So okay, so hadda markii waxaan sugaynaa candle-ka soo socdo in uu ku noqdo wax kana beautiful. halka ay leeyahay markii backtesting la sameeyay waxa candle-ka dhamaado ku tusaa laakiin candle-ka week uu la baxay soo majeeday. So week-gaas wuxuu leeyahay candle-kaneeto wuu soo baxay ilaa meesha soo tagay wuu soo gurtay. So macnaheedu zone-kaas markuu joogo adiga galaysid because aniga xariiqinta masaar waa ka soo hoosmariya xogaa 2-3 pips ama. So markuu soo gurtaba adiga waa soo qaraacday, you are involved oo lacagtii waa ku jirtaa and then bam dif lagu sii 30 pips. ana badanaa lacagooyinkan 30 pips aan dhigtaa laakiin qofka ku xiran tahay iyo dala baxba soo gashay xabad aad haysatid xabad kalena xirtid is good. haddii let's say hada lacagta aniga waxaan ka sugay wax ka badan intaas yeeto haddaan arko lacagta inay week la baxayso week-yada aniga don't like because ada day trader aniga waxaan ka hadlay waa day trader kama hadlayo hadda tahay swing trader laakiin hadda day trader tahay week-yada aniga waxay ku tusaysaa inaysan jirin awood selka sidii la rabay ah. So marka taas hadaan week arko oo let's say 50 pips camalan ka rabay inta la gaarin ugu lacagta week la baxdan maxaan sameeyaa marka ani badanaa xabadaan iska xirtaa xabadka kalena haddii xogaha ay ii soo fogaatay break even keenan keensto haddii kalena stop loss ka u daayaa. So kii aan xirtay waxa laga yaabaa inaan ku xirtay hadda let's say lacagta waa xirtay probably markii meelaas mareysay soddon waa wax xirtay ama 20 pips aan ku xirtay. Okay, meesha hadda joogtaan ku xirtay 24 pips kan kalena stop loss ka iga dhacay 10 pips. So idiyaas cunaysa lacagtii waxa laga yaabaa in break even camal imaado waliba markii u dhowdahay ee taas camal fiican. So
taas marka waxay ku fiican tahay sidaas camal u soo galayso marka haddii tan xogaha ka qararmsatay 10 copies 15 copies tan stop loss ku u deyn kartaa because the worst that can happen in lacagta iyadis cunto ma fahad oo sidaas inta aad maxaa la dhahay ku qararmsatay haddii ku sii socotana waa wax la kugu dar so taas maxaa la dhahay habka aan u isticmaalo okay nadiif hadana waxaan fiirinaynaa hadana meel kale waan ka jari karno oo maybe buy in soo raacno because it's the same thing buy hard sell hard so waxay ku fiican tahay tanito buy and sell you don't care so xageeran ko u qoraynaa because meel waxa rabaa reversal inaan ka soo qaato let's say meeshanito okay waxyarusug okay so waxaan fiirinaynaa marka lacagta iyadana waa ku sawiran tahay 1 2 3 3 4 5 kaliya isku qoslaab just I don't know saga dhigtay like wixii ba ku sawirana ma sha Allah ma aragtaan hala lacagtaanito waxaan ka qarabsanaynaa in fiican okay just to give you an example so marka hadda kan kale intaan dhigaya still backtesting wuxuu ku daray adisaas oo meesha adiga safe ku dareemay sida la rabo inaad dhigatid non meesha aniga ku dhaho because that's why the backtesting soo sameynaysa so lacagta waxaad dhigan kartaa inta like meeqa ku soo dhaaftay waxaad dhigan kartaa inta waxaad dhigan kartaa anigu guduudka dhigtaa ana waxaan jeclahay tight because lacagtaas I know waxba ilaah waa buy so meela kala maxaa lahaa wax ka soo ogaaday so ma tafi waxba isku soo fiirsada soo lacagtaas opportunity fiican ku jirto okay marka kii guduudkan dhigtay because waxaan rabaa inaan buy raaco soo cagaarada ma aha kii guduudka ayaan dhiganayaa jihada raacay ma hina jihada kale kan dadkii ugu dambeeyay oo lahaa oo lowgiisa ayaan dhiganayaa ama highgiisa in this case highgiisa okay is the same concept maxaan sugayaa kan dad inuu soo jabsado midka kale testigiisa aan raaco سمعهم اوكي هذا مركز سيد دايو واكنا si fiican loo soo jabsada kaneeto oo shaqo ka ma jiro in maarayta la jabsado soo waxaan sugayna waxa weeyaan inay lacag retest ku soo sameyso sorry waxaan sugayna waxa weeyaan okay so marka kan sameysano so kale لا صدق يصح ما بعهاني السوريا خير ممكن كلامنا طب ما شاء الله ان اوكي محن نرمك let's see maybe 50 بيبس نقول اللي اسبرا اوكي سو لعقت اني waxaan yaray marka laba biis saddex biis aan karo soo qaadayna soo markii ay hada saacada soo socoto soo noqoto marka qaar kood marka isla kandalkii intuu soo taabto meeshaas baxaayo marka qaar koodna maxaa dhaco waxa la yaabaa inay ku qaadato laba kandal saddex kandal waxay tahayba oo retestiga soo noqoto ka bacdi soo baxdo kaasna waa soo qaadanaysa okay so let's see lacagtan ujeeda ma aysan tagin meeshaas ito soo ma ku dhex jirtid that's why maxaan dhahay u fiican tahay inaadan lacagta jabsatay kandalka jabsada ama faraha uu la gelin okay so hadartan waxa anaga sugno waxa weeyaan lacagtii aan sugeynay inaan galno aan aragno hadartan developmentka okay ani hadartan kana hadana marka la soo jabsaday so I'm inkastoo aanan jeclayn lacagta anito habkee u socotaba laakiin dan isticmaalana the same concept break out retest and you are involved hadda waxaan arkaynaa aan fiirinayna kaliya waxa waa hadda lacagta anito ay noogu dhacayso take profit okay hakas boom that's it so aniga waa saas waxaan sugaa break out lacag ku yar noqotay ka bacad soo baxday hadda fiir lacagta anito ani wali isla wuxuu iyaalaa keegi guduudka ahaa da aysan sameyn isla kandalkii intuu noqdo baxday because tana aad u dhaqaaqday soo marka waxay ku qaadatay
dhowr kandal inay soo noqoto haddana maxaa dhaha jabsasho kala dhacdo haddana soo noqo maxaa dhaha retest soo noqoto involved iga dhigto markaas aan galo. That is way safer than kandalkaasoo si carra haddana kii kor xag ka bilawda arkay waxaa dhahay laakiin ma kusoo sameysana retest waa qaadaysaa meeshaasaa geliya ka geliya waxaa leeyahay bas way iga tagtay lacagta way iga tagtay boom ma lagu soo kala firayna saasaynu kugu soo qanay soo isbarinaa lacagtas ku jirin inta stop loss kaaga dhici lahayd adoo maxaa la dhahay u gudad ku galay ama aan ku sameyn human being aan ahay mararka qaarkood aniga naftayda lacag aan inta camali badan haddeertan waa fogtahay mararka qaarkood meesha aan ka sugayo inay retest kusoo sameeyeen iyadoon kusoo sameeyeen agteeda tagtay noqonay oo aan galaa markaas haddana waxay kusoo sameysaa wax inta ii dhaqaaqdo haddana waxay saa camal ay sameynay way soo jabsanay kii ku xiga inta tagu noqona aniga inta raba inaan ka soo galo so maxaa dhacay markaas wax leeyahay aan qaato hadda waxa lagu soo sameynaa retestigii kale stop loss probably ga dhaca and then boom sida kan hadda taas daba gali lahaa stop loss kiga jaaka gashan lahaa stop loss aan iska ilaalin karay mararka qaarkood lacaga iyadoo shuruudan aan ka hadlay sameysay stop loss ku dhici kartaa. Of course marketkan waa bias sellers waa isdagaala mugto waa qiyaama waa dad jira oo rabaan inay ku tusaan in lacagta jabsato adala xaday wadana lagu soo kala fireena so all that happened so dukan dalka soo jabsaday kii kala retest soo sameystay oo soo noqday haddana uu sii baxay haddana kan ku xiga soo dhaca adigana waxa waay shuruuda saxsana ku soo gashay balse stop loss lacagta kaaga dhacday and that's okay. Stop loss kaasita ma ahan stop loss adiga controlkaaga ku jiro laakiin kan inaan daba ordo oo meeshii aan ku sugi lahaa meeshii inuu kusoo noqoto kaas daba ordo waa stop loss aan maxaa dhahay aniga control ku haayay oo raadsaday aan in maxaa dhahay gacmihii ku raadsaday laakiin mid adiga shuruudaada oo raacay kaaga dhacay stop loss kaasita then stop loss is part of the game. I know markuu qofku cusub yahay stop loss badan ku dhacaan xogaha trauma uu ka qaadaa stop loss balse stop loss part of the game as long oo profit ka badan yahay as long oo maxaa dhahay shuruudo leedahay shuruudihiina adoo isticmaalaya stop loss kaaga dhacday marketka adii muxuu ku tidogo anaga waxaan nahay parasite waxa la yiraahdo soo mineeda waxa baa hadduu salka xoogayaan salkan daba gelina hadduu baagi xoogayaan baagan daba gelina laakiin salki baagi mar walba dagaal ka dhaxay ogaada soo ma bamida xoogan wuxuu ku xoogayaan based on market movers ka jihadu qaatay daas ku jihadihiin waa maxaa dhahay إن شاء الله حنسمينا فيديو صوص عضو باكتستين كلية اللي نسمين دونا سيان معركة وفايدة إن شاء الله وبلا توفيق. Okay, let's close it now.